shir jireed oo maanta magaalada Hargeysa ay si wada jir ugu wada qabteen xisbiyada mucaaradka ee u cidiyo wadani waxay qaadaceen ansixintii maanta ay xubnaha gudida doorashooyinka ee cusub ee qaar ka mid ah golaha wakiilada ansixiyeen iyagoona sheegay in golaha maanta xukuumaddu u isticmaashay dhaqaale fara badan ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay Professor Axmed Cabdi Muuse Abiyan oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga u cid oo halkaas warbaahinta uga akhriyay bayaanka ay soo saareen waxa uu sheegay in haba yaraataan wax wada shaqeyn la yeelo doonin xubnaha maanta ay ansixiyeen golaha wakiilada ee gudida doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay qofka rasmiga labada xisbi ee mucaarid وعد يا ودني كوادن كوميشنكي ساكا سدا جوجوبكا لو مريي golaha wakiilada Soomaaliland ugu horeyn waxa aanu shacabka Soomaaliland sarafta leh waxa u sheegaynaa annagoo ka xun in hanaankii geedi socodka dimuqraadiyadda ee Soomaaliland oo ahaa mid ku saleysan dastuurka isla markaana bulshada Soomaaliland u soo martay dariiq dheer oo ay ku baxday waqti iyo hanti ummadeedba si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku fadhida hal cod iyo hal qof in xukuumadda kulmiye ay go'dheer ku riday gacantoodana ku gowracday sida daraadeed waxay labada xisbi mucaarad ee u ciidiya wadani cadeynaya in komishankii doorashooyinka qaranka ee la sugayay laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsoori lahaayeen haddaba kadib markii ay labada xisbi u cadaatay in xukuumadda kulmiye ay baalmartay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay isla markaana ay cadaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad isla markaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyay doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalkan ka hana qaaday Soomaaliland ku soo caanamaashay isla markaana u cadaystay nidaamka litalsnimo waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay komishanka ee lagu keenay sifada jujuubka kaas oo loo maray dariiq sharciga baalmarsan ugu dambeyn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arisanayo xaaladda uu dalku marayo iyada oo qaranka Soomaaliland masiirkiisu uu gebi ka laalaado oo bilaahi tawfiiq dhinaca kale isaguna waxa halkaas ka hadlay Khadar Xuseen Cabdi xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna tilmaamay maanta wixii dhacay waa la wada socoteen in baarlamaankii saylad laga dhigay ciidamo la dul dhigay si qasab oo jujuuba lagu meel mariyay xubno aan dariiq sharciga ku imanin Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan nirig xalaala ma dhasho komishankaasi xaaraan buu ku yimi xaaraan baanu ku joogaa xaaraan baana maxaan ku dhahdaa maanta lagu meel mariyay labada xisbi saaka way soo yimaadeen arinta wada tashi dheer bay ka galeen waxa uu muuqatay in dimuqraadiyaddii Soomaaliland maanta la gowracay madaxweynuhuna uu u bareeray inuu dimuqraadiyadda Soomaaliland gowraco Abdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida